madaxweynaha iyo xukuumaddu waanu ku hambalyeynayna wada hadalladii madhalayska noqday ee Soomaaliya ay ka bixeen wasiirka hore wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ahna afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye Cabdinaasir Buuni ugu horeyn soo dhaw aad iyo aad baad mahadsantahay Luqmaan Media aad iyo aad maalin wanaagsan mudane waxa jirta arrin maalmahan taagneyd oo ah arrinta gudida nabadda ee Cabdiqaadir Diin madaxweynuhu sameeyay guurtida khilaaf ka jira xisbigiina kulmiye arrintaas u arkay والله gudida de horta nabadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqay isaga dikreeto ku magacaabay waxana runtii aanu aragnaa dikreetooyinka madaxweynuhu uu xaq u leeyahay ee uu maalinba hawl cid weegmanaya inay tahay laakiin de dastuurku markaynu ka hadlayno dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 61 waxa ku cad waajibaadka hay'adaha dastuuriga ah oo ay ka mid tahay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadka dastuuriga iyo wuxuu u xil saaran yahay qodobkaasi wuxuu oranayaa golaha guurtidu waajibaadka dastuuriga ah waxa uu xil saaran yihiin nabadgelyada dhaqanka diinta marka nabadda iyo isku soo celinta iyo dhexdhexaadinta iyo wixii naga xun dastuurkii ugu sii marka madaxweynuhu markuu cid magacaabayo ee hay'ad dastuuriyina u xil saaranta waa inuu waajibaadkeega sheegaa oo yiraahdo xukuumadayda ayaa runtii qaabilsan nabadgelyada gudahana wasaaradda dakhliga qaabilsan marka gudidaas waa sidoo gudoomiyaha golaha guurtida uga hadlay waajibaadka qarankan ee dastuurku cidda uu nabadda u xil saaray waa golaha guurtida waana caddahay marka madaxweynuhu waa inuu isagu kaleer gareeyaa shaqada ay gudidaas u qabanayso qodobka dastuuriga haddii dastuur kala jabiyana waajibaad baa ka dhalanaya in golayaasha madaxweynaha u yeedhaan oo wax laga weydiiyo marka sidaas aan u aragnaa gudida nabaduna waxay leedahay sharci baan nahnay madaxweynaha hoos tagnaa guurtiis ma diidanina waan wada inuu madaxweyne magacaabay shaki kuma jiro laakiin shaqadoodu ma shaqadii dastuurku golaha guurtida siiyaa mise maaha cidda magacawda laga rabaa inay kala saarto way arrinta wada hadallada Somaliland Soomaaliya ee xukuumaddu ka baxday iyada sadar waxaan u arkaa maadaama anigu aan dastuurkana ku shaqo lahaa wasiirka wagina aan ahaa labada gole iyaga ayaa joojiyay oo xukuumadda Axmed Siiraaye Allah u naxariistay ay weydiisatay inay wada hadallada dabarka ka furto madaxweynahan hadduu joojiyo waan ku hambalyeynaa laakiin waa inuu u maraa cala dariiq dastuur dastuurka waa inuu dariiqeega u maraa taasa marka ay noqonaysaa haddii kale waxay noqonaysaa inay dadkana u sheegeen inay wada hadallada joojiyeen hoostana ay kala xiriirayaan taasina waa dastuur jabin iyo khiyaano iyo ay soo galaysaa madaxweynaha iyo xukuumaddu waanu ku hambalyeynayna wada hadalladii madhalayska noqday ee Soomaaliya ay ka bixeen laakiin waa inay dariiqa dastuurka u maraan oo labada gole geeyo labada gole ay dabarka ku celiyaan halka ay naga xidhanto mudooyinka waxa la soo hadal qaaday in khilaaf ka jiro hoggaanka xisbiga kulmiye loolana ay ku jiraan musharaxnimadii gudoomiyaha bal arrimaha xaq Luqmaan waa dawr baahinta waad ku jirtaa annaguna siyaasaddan ku jirnaa waxa taariikh dheer in kulmiye uu guulo ku gaaro markasta uu gudihiisa soo soxo marka kulmiye in lagu dawaqo waxaan u aragnaa inuu weli xisbi weyn oo aad moodaba inuu taladii dalka hayo isagoo taladii dalka ka tagay haddana dadkii ay kulmiyada hayaan maxaa kii maxaafidka loo hadal hayn waayay waa saamaynta kulmiye leeyahay marka wax kasta oo gudahayaga jiray waa awoodda wax way xisbigu leeyahay aad iyo aad baa mahadsan ayuu mahadsan yahay wasiirka hore xiriirka golayaasha Somaliland Cabdinaasir Buuni aad